السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان صاحبة الصوماليات ملك استوى جوكتان يسكستو عضو داوليسان حلو ونأكسن. طبعا موضوع عن الحكومة سابسين هاي شركة شري كالعي مقالة مقدشو كاسو لحية صدح أروح أو معارضة دولة فدرالك إيو بيش عالمك إن شاء الله تعالى وحي إلهي لغا فهمسيي يحويه نغسو قاري أيان إذن لو ذاك الدولنا أذكر وحالي قاعد سنة مقال كذلك سارتان لو ذاك تنساحب لي مركة هوري خرطة waxaan joogaa wadan saddexaad oo ma joogo wadankii aan deganaa sidoo kale dalkii hooyo ma joogo dib baan idinkaga sheegi doonaa meesha hadda aan ku suganahay hase yeeshee shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay shirkaas wuxuu u dhexeeyey saddex urur oo mucaarad ah iyo kooxdii dowladda federaalka Soomaaliya magaceeda wadatay iyo beesha caalamka oo dhexdhexaadiyaal ahayd beesha caalamku laftirkeedu waxay ka koobnayd dowladda Turkiga oo shirka qabanqaabisay Ingiriiska Mareykanka midowga Yurub iyo qaramada midoobay halkaas waxa weeye mabaadi kala duwan ayaa la soo gudbiyay nabad iyo nolol oo anigu aan ka tirsanahay waxay soo gudbiyeen mabaadi qaran oo aad iyo aad u qurux badan bal marka hore inta aan barnaamijka gudagelin aan 3 daqiiqo iyo xoogaa idinku dugo aragtidii nabad iyo nolol la tagtay kulankii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee bal aynu daawano hogaamiyaha guddigii nabad iyo nolol محمد عبد الرزاق oo markaasi saxaafada la hadlay kulanku markuu soo dhamaaday kadib bismillaahir rahmaanir rahiim galab wanaagsan maanta oo ay taariikhdu tahay 9 bisha luulyo 2026 waxa xisbiga nabad iyo nolol uu ka qayb galay wareegii labaad ee shirkii wada hadallada ee magaalada muqdisho uga socday mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ay soo abaabushay fududeynaysayna dowladda Turkiga shirka aan maanta ka qayb galnay waxa uu u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo nabad iyo nolol waxaana goobjoog ka ahaa dowladaha Turkiga Mareykanka Ingiriiska iyo ururka midowga Yurub iyo qaramada midoobay oo loo yaqaano Quartet shirka maanta ujeedadiisu waxay ahayd in garab walba uu soo bandhigo nooca doorashada ee ay siinayaan ahmiyadda iyo sida looga bixi karo marxaladda siyaasadeed ee hadda lagu jiro sidaas daraadeed waxaan jeclahay in aan dadweynaha Soomaaliyeed la wadaagno nooca doorasho ee aan u aragno in Soomaaliya ay kaga gudbi karto marxaladan cakiran doorashadaas waxaan jeclahay in aan si guud idin ka siino 10 tilmaamood 1